kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo xubinteena mikrofoonka wareega oo ka dhageysataan Radio Africa 95.3 MHz. Mikrofoonka wareega wuxuu idin leeyahay rag weesha dumarna waa sheeko bigeys misacadeys maxad abaysa waa maamaayo iyo halkudhig Soomaaliyeed oo ku aadan shaaha. xubinteena waxaan markaana ku soo qaadanaynaa Soomaalida ku dhaqan Suudaan iyo sida ay shaaha isku yihiin. maalin kasta 3 bilyan oo koob oo shaah ah ayaa dunida laga cabaa. shaaha waa mid kamid ah waxyaabaha loogu cabista badan yahay dunida marka laga yimaado biyaha caadiga ah oo kaalinta koowaad ku jira marka laga hadlayo waxyaabaha cabitaanka ah. koobka shaaha inkastoo ay kala duwan yihiin habka ay dadka u sameystaan iyo noocyadiisa, haddana waa qayb kamid ah nolol maalmeedka balaayiin ruux oo maanta dunida ku nool. waana cunsur asaasi u ah martisoorka, kulamada qoyska iyo asxaabta. waa wax loogu jecel yahay cabistiisa adduunyada oo idil. dadka qaar ayaa u caba shaaha xiise ay u qabaan dhadhankiisa, kuwa waxay u isticmaalaan dawo ahaan, kuwa kale ayaa u caba si ay firfircooni maskaxeed uga helaan. marka la tirinayo wadamada dunida dadkoodu ay ugu shaaha cabista badan yihiin, waxaa safka hore kaga jira qiimeyn la sameeyay sanadkii 2009 wadamada Turkiga, Morocco, Ireland, Mauritania iyo boqortooyada Ingiriiska oo ilaa kaalinta 5aad ku kala jira. wadankeena Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada Afrika kuwooda ugu shaaha cabista badan, waxa uuna liiska wadamada shaaha cabista badan kaga jira sabka 68aad ee caalamka. marka qaaradda Afrika laga eegana waa wadanka 14aad ee dadkiisu ay shaaha cabista badan yihiin. waxaan qaar kamid ah Soomaalida ku nool Suudaan weydiima aha sida isku tihiin shaaha. imse jeer ayaa cabtaa shaaha 24 saac? haddii aadan cabin maxaad isleedahay way dhici karaan? weydiimahan oo aan weydiina qaar kamid ah Soomaalida ku nool Suudaan ayaa ahayd warcelintooda sida kan. والله إني شاحة واسكو في عنها شاحة محايلي مركز دريمتي دو كلا إنا حاجة إسعاج دريمتي أو دا شيء وحوبانتا إنا حاجة فرعوني دريمتي سياس درتيد وحا شاحة وقتية بدن نواعبا سيدا سدح وقتية وكلا الصبيحي قلبكي هابينكي إيو وقتية دو كلا أباهدو حاجة دريمو إنا أباهنتو كلا نفتا إنا حاجة شاح يرعبو marka inta badan shaaha isku fiican. wallahi 24 saac marka uu yartahay 3 waqti iyo waqtiyada kale waxa akhrinaa mar walba horta waxa akhrinaa koobka iyo shaaha way ag yaala. wallahi marka caajis dareentidoo kale waa qasab ina cabtid. markaas oo kale waxa dareemaysaa xoogaa yar oo firfircooni yarna waa dareemaysaa. marka hadaan nacabin waxa dareemaa xoogaa madax wareer yar iyo maxay dhibtid waa ku waxaan noqday wax oo yani ku tiirsan oo madax wareer yar markaas waa dareemaa hadaan nacabin. bismillah. shaaha waan isku wacnahay mar walba aan dareemo caajis iyo cilada shaaha waan cabaa sadarteed was jeclay shaaha yoomiyan 24 saacadood waxay ku xidhantahay sidaan mashquulka u ahay sidaan u firaaqada u hayo. marka aan mashquulka ahay ma badsado hal yaab inaan 2 jeer cabo, laakiin markaan aan firaaqada badan hayo hal yaab ilaa 5 jeer cabo maalintii. wallahi wax saa badan ma aaminsan inay u dhacayaan, laakiin xoogaa caajis inuu jiri karayo waan dareemayaa haddii aan shaah badan cabin maalinta. masaajkan wuu saxayaa iyo joogaba sadarteed shaaha waa rag waa shaah baa dumarna waa sheeko. shaaha horta wallahi waxaan kamid ahay dadka aadka u taageeran kamid ahay dadka shaaha aadka u caba oo masaajkooda ku saxdan kamid ahay. maalinkii oo kale hadaanan cabin adigu 3 koob shaaha ama 3 jeer hadaan cabinba waxaad u qabtaa shooye inaan waxay khaldan yihiin ama aan shooye iscaajid jiro ama stress wax saas ay jiraan baad dareemaysaa. marka shaahu very aad buu muhiim ugu yahay baan dhihi karaa. haddaan cabin waxa aaminsan in caajiska de mataqana caajis aan dareemayo aan dareemayo firfircooni la'aan aan dareemayo xoogaa shooye stress in uu jiro. marka shaahu caafimaadkayga aad buu uga qayb qaataa. waa tahay dhageystayaal weli waxaad dhageysanaysaan xubinteena mikrofoonka wareega oo maanta ku soo qaadanayno Soomaalida ku dhaqan Suudaan iyo sida ay shaaha isku yihiin. shaaha iyo halka uu ka soo jeedo. Shiinaha ayaa ah dalkii ugu horeeyay ay ka bixi jirtay caleenta shaaha. qabuuraha Yanglink ee ku yaala bartamaha dalka Shiina ayaa laga helay doorsho la qalajiyo oo caleen ka samaysan. maadooyinka kafeeyinka iyo thiiniinka ee ku jira caleenta shaaha ayaa cadeysay in waxyaabahani ay yihiin caleen shaah oo la aasay dadkii dhintay, waxaana loo maleeyay inay ujeedadu ahayd in dadkaasi shaah sahay ay ka dhigtaan caleenta shaaha.
Cadeymahani ayaa muujinaya in shaaha la cabi jiray 200 sano ka hor bilowgii taariikhda milaadiga. Dhammaan caleenta shaaha waxay ka baxaan geedka Camellia cincina. Caleenta iyo booqa geedka oo markasta cagaar ah ayaa inta badan laga sameeyaa caleenta shaaha. Farqiga u dhexeeya noocyada shaaha ayay ku xiran tahay kala duwanaanshaha geedaha, xaaladaha koritaanka ee geedaha bixiya caleenta shaaha, iyo weliba habka markii dambe loo farsameynayo caleenta shaaha. Dalka Japan, caleenta shaaha waxay markii ugu horeysay dalka Shiinaha ka keenay baadirgii iyo danjiirayaal qiyaastii qarnigii 6aad ee milaadiga. Waxa uuna shaaha isla markiiba noqday cabitaan wadaadada ku kooban shaaha iyo caafimaadka qofka. Cilmi baaris la sameeyay shaaha ayaa natiijadii ka soo baxday la sheegay in haddii qofka uu dhowr koob oo shaaha uu cabo maalintii uu ka ilaalinayo qaadista cudurrada. Aqoon-yahanada baaris cilmiyeedka sameeyay oo ka tirsan jaamacadda Harvard iyo isbitaalka haweenka ee Boston ayaa sheegay in coffee cabistiisa aanan saameyn la mid ahayn. Culimada sayniska waxay ogaadeen in walxaha amino acidka loo yaqaano L-theanine oo shaaha ku jirta ay xoojiso awoodda ay unugyadu jirka ee loo yaqaano T cells kula dagaalamayaan jeermiska. Unugyadaas waa kuwa safka hore ee difaaca jirka isaga celiya weerarada bakteeriyada iyo fayruuska. Haddaba saynisyahanada tijaabadan sameeyay waxay la kaashadeen dad aan badnayn oo iskooda uga qayb galay cilmi baaris. Waxay qof kasta siin jireen qiyaastii ilaa nus litir shaah ah maalin walba. Waxaa la siinayay shaah caano leh, barna isagoo caano lahayn, mar shaah sokor leh, barna shaah aan sokor lahayn. Markii 4 toddobaad sidaasi lagu waday ayay cilmi baarayaashii heleen oo ay soo baxday in jirkoodu uu 5 jeer ka difaac weynaaday sidii uu ahaa tijaabadii ka hor ee uu haatan si wanaagsan isaga difaaci karo bakteeriyada marka loo eego sidii ahaayay tijaabadii ka hor. Shaaha wuxuu ka mid yahay nolol maalmeedka dalkeena Soomaaliya. Meelaha qaar sida miyiga waxay baa loo cabaasay ka badan biyaha. Haddaba shaaha saaxiibka la Soomaalida ayaa ah faa'iidadiisa. Shaaha cagaaran ayaa ka faa'iido badan kan madow ee Soomaalida cabto. Shaaha waxaa ku jira maadooyin yareeya kolestaroolka xun. Waa nooc ka mid ah dufan oo haddii uu kor u kaco keeni karta dhibaatooyin badan oo caafimaad darro. Cabidda shaaha wuxuu yareeyaa fursadaha cudurrada wadnaha. Cilmi baaris la sameeyay ayaa ku doodaysa in shaahu uu yareeyo fursadaha kansarka. Sidoo kale waxaa jira faa'iidooyin kale sida firfircoonaynta maskaxda, difaaca jirka, kor u qaadidda metabolismka, nafaqeynta jirka marka lagu daro caanaha, iyo weliba faa'iidooyin kale. Dhanka kale shaaha ayaa leh faa'iido darro sida inuu qalajiyo jirka, waayo maadada kofeeinka waxay qabataa shaqooyin biyo saarid ah. Shaaha waxaa ku jira maadooyin oxalate oo haddii loo qaato si xad dhaaf ah keeni karta keliya oo dhagax fariistaan. Qaadashada daawooyinka qaar waxay u baahan yihiin in la yareeyo shaaha. Sidaa daraaddeed, haddii qofka uu qaadanayo daawo, waxaa habboon inuu dhaqaatiirkiisa kala tashto haddii uu shaaha u cabi karo si zaa'id ah. Dadka qaba cudurrada wadnaha, indhaha, maskaxda, dhiig-karka iyo weliba sokorta waxay u baahan yihiin in ay si taxaddar leh u isticmaalaan shaaha, isla markaana dhaqaatiirta la tashtaan haddii uu balwad ku noqday cabista shaaha. Shaaha wuxuu yareeyaa in birta si sax ah jirka u qaato. Haweeneyda uurka leh waxa ay u baahan yihiin maadada iron. Sidaa daraaddeed, shaaha badan wuxuu keeni karaa dhiig la'aan. Inta badan 3 koob maalintii waa ka mamnuuc haweenka uurka leh. Guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa xubinteena mikrofoonka wareega aad markaan ku dhagaysateen Soomaalida ku dhaqan Suudaan iyo sida shaaha ay isku yihiin. Intaan ku kulmeyno xubintan oo kale ah waa anigoo Xasan Cabqari oo idinkaga tagaya sidaasi nabadgelyo.